xisbiga wadaniga Soomaaliyeed oo nasiib u yeeshay noqdayna xisbigii u horeeyay ee dalka wax ka dhiso Professor Ali Maxamed Geedi ra'iisul wasaaraheena hore khayr Allah siiyo marna ka faaruqin siyaasadda aanan maqlin dhaawacyo u geysanayo siyaasadda aanan maqlin waxyeelo u geysanayo wadanka inuu wax tarmaahay garabkayga bidix taagan waxaan leeyahay Professor ra'iisul wasaare soo dhawow waa ku mahad celineynaa dhididka iga socdo waa shucuur ku saabsan nin kursi ka dagay haddana wadanka dhisaayo afartii sano joogtana waa lagu raayay maantana heerkaas aad maraysaa inaad wadankii wax ka dhisto annagoo ku ogeyn anaga soo kordhacday adoo baawur raran wadato waa ku soo dhaweyneynaa warfaafintii waa waxa reerahayga taagan wasaaradii oo kugu soo yaacday jaceyl aawiis waxaad noo keentay waa gudoonay hal sano iyo bilaan joognaa meeshaan waxaan ka sameynay shaqada aad arkaysid quruxda badan madxafka waa tagi doontaa tiyaatarka waa tagi doontaa waa lagu marsiinayaa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin ra'iisul wasaaraheena hore gudoomiyaha al-xisb al-wadani الصومال hogaamiyaha xisbiga wadaniga Soomaaliyeed iyo dhammaan xubnaha xisbiga iyo taageerayaasha xisbiga ayaa maanta nagu soo booqday barnaamijka isxilqaan ee ka socda goobihii muhiimka ahaa goobihii taariikhiga ahaa waxaan taagannahay waa meeshii hadda ay sheegaysa agaasimo Maryan waa maktabadda qaranka oo ka kooban 22 hool iyo xafiisyo loogu talagalay 70,000 oo arday oo ka soo qalin jabinaysa jaamacadaha dalka meesha wax ku bar lahaayeen meesha fariiso lahaayeen meesha buugaagta ka qaadan lahaayeen meesha cilmiga meesha ra'iisul wasaare Ali Maxamed Geedi oo ka qaadan jiray buugaagta wax ku akhrisan jiray asagoo macalinaya asagoo ardaya mudan ra'iisul wasaare soo dhawow adiga iyo xisbigaaga waan idinku soo dhaweynaynaa muddadii ra'iisul wasaaraha aad ahaydna sharaf ayaad ka lahayd dalka dhexdiisa dalka gudihiisa iyo dibaddiisa muddadii ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay muddo 30 sano ahna waxaad ahayd ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee dawladda Soomaaliyeed madaxtooyada u fura albaabadeeda u fura ee soo dejiya taariikhda ayaa ku qoraysa maantana waxaa tahay xisbigii ka soo qayb galo albaabada u furay ururada bulshada ee axsaabta inay mustaqbalka ka qayb galaan barnaamijka isxilqaan sharaf weyn inoo tahay albaabada qaranka waxaa sheegaya inaad furayso xisbiga magaciisa sheegaya hogaamiyaha ka tahay oo ah al-xisb al-wadani as-Soomaal xisbigaas muhiimadiisa waxaa sheegaysa inuu yahay xisbi Soomaaliyeed oo wadani ah yacni magaca ayaa laga garan karaa waxqabadka iyo mustaqbalka iyo higsiga xisbigan uu leeyahay mudan ra'iisul wasaare Ali Maxamed Geedi ra'iisul wasaaraheena hore ee dalka ku soo dhawo barnaamijka isxilqaan waxaan ka gudoonay oo deeqahood noo keentay oo adiga axsaabta dhan oo dalka joogta aysan wali noo keenin waxa waaye qalabkii dhismaha shamiintadii iyo bulakeetigii ya salaam rajo fiican aad gelinaysaa annaga laftigeena motivation aad noo samaynaysaa hami fiican ay noo tahay waana dhammaystiraynaa dalka intiisa dhiman waan rajaynaynaa inaad maxaan ku idhaahdaa aad noqoto inaad nala dhisto oodan naga tegin ilaa uu ka dhammaado aad iyo aad u mahadsan tahay isku soo dhawow agaasimaha mashruuca isxilqaan marwo Maryan isxilqaan xiriiriyaha shaqaalaha rayidka ee mashruuca isxilqaan mudane Ismaaciil shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ee ku howlan maanta shaqadan qiimaha badan gobolada waa beri oo tiyaatarkii loo dhameeyo oo diyaarsan dhammaan bahda saxaafadda madaxda iyo howlwadeennada xisbiga wadaniga Soomaaliyeed ee goobjooga ay inta maqanba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib goobtaan taagannahay oo ah maktabadda qaranka oo maalmo dhow la furi doono iyadoo qurux badan waxay xasuusinaysaa anigoo arday ah iyo anigoo macallin ahba inaan buugta ka qaadan jiray kuna akhrisan jiray waad maqlayseen in 70,000 oo arday loogu talagalay inay buug ka qaadato kuna akhrisato waa shucladii cilmiga waa meeshii laga barbaarin lahay madaxda mustaqbalka dalka
waxay xasuusisay arrintan macallinimadeydii macallin inkastoo mar dhow la xusay maalintii macallinka 21 November hambalyaan u dirayaa mar kale macallimiinta Soomaaliyeed macallin waa barbaariye sida waalidkoo kale waa maamule waa hanuuniye waa hogaamiye horta macallin in la qiimeeyo madxafka qaranka ayaa isaguna bidixdeena ka muuqda oo la soo gabagabeeyey oo lagu kaydin jireen ka fiirsan jirna taariikhda qaranka Soomaaliyeed iyo halgamadii kala duwan ee loo soo galay gobonimo doonka anigoo farxadaas awgeed aan wax badan sheegi doonin xisbiga wadaniga Soomaaliyeed sharaf bay u tahay anigu ma ogeyn inuu yahay xisbiga ugu horeeyay ee soo booqda sharaftan iyo qiimahan maanta aan taaganahay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay qalbigeennuna way idin la jirayaa ilaa inta la nool yahay waxaan intaas ku darayaa xisbigu waa xisbi siyaasi ah wuxuu ka mid yahay xisbiyada siyaasadda qaranka ee sharciga ah xisbina waxaa loo dhisaa loona barbaariyaa inuu siyaasadda dalka saxo inuu tilmaamo bixiyo haddii wax khaldan yihiin inuu barbaariyo qarannimada Soomaaliyeed ee looma dhisto in wax lagu carqaladeeyo ama isbaaro loogu dhigto dawladda iyo hay'adaheeda bilow wanaagsan baan arkaa maanta waxaan ugu baaqayaa xisbiyada siyaasadeed ee dalka saaxiibaday walaalahay hogaamiyaal iyo gudoomiyaal iyo xubnahooda kale intaba annagu maanta sooma kala harin gudoomiyihii garabka haweenka waa socdaa ee xisbiga gudoomiyihii garabka dhalinyaradana waa socdaa intaad arkaysaana waa guddi fulin iyo xubno golo dhexe iyo taageerayaal waxaan rajaynaynaa ku dayasho fiican inay noqdaan xisbiyadu anigu siyaasadda uma aqaano kursi nin ka riixo ee waxaan u aqaanaa siyaasadda in qarannimadu ay socoto ciddii wax isku hayso way tartami doontaa shacbigaana ka jawaabi doona sidaas darteed waxaan ugu baaqayaa kuna celcelinayaa inay ka qayb galaan horumarinta iyo dib u dhiska dalka inay jeebkooda gacanta gelshaan anigu qalbigan keennay iyo xurmad iyo jacayle xoolo badan ma keenin laakiin qalbigeena idinla jira anigu waxaan soo hogaamiyey xukuumad waqtigu u adkaa oo ina dhaqaale miisaaniyad lahayn laakiin intii ka dambaysa dhaqaale maamuleena jeebka gacanta gelshaan dalkan ha dhisano ugu dambeyntii mahadcelinta aan u gudbinayo mashruucan inta garwadada ka ah iyo madaxda qaranka ee ku baaqday ee in la hirgeliyo siyaasad ka dhigtayna waa u mahadcelinayaa inay sii laabaan dadaalkana waa rajaynayaa lama sano ay ka dambaysay maanta sidii inta uu kulun jannadana alla noo kulun awdaangu way waxaan mahad u jeedinayaa dhammaan intii ka qayb gashay mashruucan shaqaale dawladeed iyo kuwa gaarka ah iyo ganacsatada iyo hay'adaha dawladda iyaguna ka qayb qaatay iftiin wanaagsan baa u muuqda ummadda Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa inaan gabagabayno isugu soo noqono xafladda furitaanka meelahan qiimaha badan qaranka ugu fadhiya oo lagu barbaarin doono ubadka soo socda iyo jiilasha soo socda qaranka Soomaaliyeed aad iyo aad ayaan idinkugu mahadcelinayaa wax weyn ayaad qabateen waa u dhabar adeegteen waxaan rajaynayaa inaad dhamaystirtaan dawladda madaxdeeda ugu sareysana idinma mooge waxaan ugu baaqayaa inay biladihiina iyo shahaado sharafiidina diyaarshaan oo munaasabadaas ka qayb galno dhalinyaradu maanta nasiib ay u yeesheen in xarumihii lagu barbaarinayay dib loo dayactiro loo qurxiyo taariikhda Soomaaliyeed oo madxafku ururi jiray cilmiga qeybihiisa kala duwan baa maktabadan la soo dhigi jiray tiyaatarku ummadda uu wacyi geli jiray oo hanuuni jiray gobolada Waaberi iyo kuwa kale qaranka iyo ciidamadaba waxaan aaminsanahay dib u soo nooleynta xarumahan kaabiga isku hayo dariska inay dowrka ugu muhiimsan ka ciyaari doonaan wacyigelinta ummadda Soomaaliyeed saaxiibadee waxaan ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan xasilinta iyo amniga dalka iyo horumarinta iyo dib u dhiska ummadda Soomaaliyeed ee ayna ku mashquulin ayna ku mashquulin in unjalaafo iyo masaamiir loo dhigo dawlad Soomaaliyeed hore u soconaysa hadday xun yihiin xataa waqtigooda tirsamaya
doorashaha u diyaar garoobaan laakiin iyagoo sacbinayo taakulaynaya dhinaca ka socda in muddada loo dhameeyaan ugu baaqayaa ilaahay baa darajada baxsha mid aan la arkayn la fiilin baa ilaahay sii karaa mid aan qaylin oon tartamin oon dhibaato geysan oo ilaahay siinaya oo dhibaato mid geysan ma wala rabo in la siiyo marka saaxiibaday waxaan ugu baaqayaa uguna celcelinayaa inay dawladda waqtigeeda u dhameeyaan ee ciddii wax isku haysa ay tartantee shacbiga kalsooni ka doonato laakiin in dhibaato la abuuro waxaanan u aaminsanaynaa waa idin sheegaya maanta Soomaaliya ha maqasho xanuun iyo beelaha way igu haysaa dawladdan dhibkan ka soo maray marka meelay ka timid iyo si ay ku timid dadaan ogeyn ayaa u bareeri kara inay dhibaan oo ciqaabaan laakiin shacbiga Soomaaliyeed idinka ayaa mas'uuliyaddu idin saaran tahay inaad ka ceshataan cid kastoo isku dayda caqabadaynta dawladda Soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsantahay waxaan rabaa inaan saaxiibaday siyaasiyiinta xasuusiyo war waxay ku fiican yihiin in lagu amaano waxay ku khaldan yihiin in lagu dhaliilo isa sax la yiraahdo marka waa ku amaanaya anigu wax qabadka maaha intaan oo kaliya waxyaabo fara badan oo kale oo guul laga gaaro ayaa jira laakiin dadka kursi ka ridadka ka shaqeeyaho waa xaqiraan guulaha ay gaaraan mas'uuliyiintu xumaanta kaliya ka fikiraan marka waxaan ugu baaqayaa inay iska dhaafaan inay saaxiibaday noqdaan xilal ay soo qabteen sida anigoo kale inay ku faanaan waxay qabteen shacbiga tusaan shacbiga inayna qalbiga ka dilin oo rajada ka dilin wax macaan ay afkooda ka soo baxaan ugu baaqaya ugu dambeyn